السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa muqbaayaha qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. ku soo dhawaada warkii oo qodobada ugu xoog garoon leh ee aan idinku haynana uu kamid yahay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti. wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ka hadashay toddobaadyo ku wajahan xuquuqda aadamiga. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo socdaal shaqo ku jooga dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa qasriga madaxtooyada waxa uu kula yeeshay dhigiisa dalkaasi Ismaaciil Cumar Geelle. wariyahayga Saciid Axmed Cawaale ayaa ka soo warramay magaalada Djibouti. madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo. kulan saacada qaatay oo ka dhacay xarunta qasriga madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa labada madaxweyne ay kaga wada hadleen si xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhinacyada kala duwan ee nabadgelyada iyo socodka iyo arrimaha la halmaala. waxaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay si heer qaran ah isagoo kaga hor yimid albaabka hore ee barxadda xarunta qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda. kulankan ka dhacay xarunta qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Djibouti waxa uu ahaa mid si gaar ah u dhaxmaray labada madaxweyne ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, taasi oo ay iskaga xog wareysteen xaaladda guud ee labada dal iyo sidii loo sii xoojin lahaa xiriirkii u dhaxeeyay labada dal ee Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Djibouti. kulankaasi uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo uu qasriga madaxtooyada kula yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu ku dhamaaday jawi safgarad iyo dareen farxadeed. geesta kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxa qasriga madaxtooyada harimo sharafeed ugu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. waa Maasim Axmed Cawaale iyo Cabdilaahi Cali Suudi, telefishinka qaranka Soomaaliland, Djibouti. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada oo socdaal ku joogta magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo waxay ka hadashay howlgallo lagaga hortagayo tacadiyada ka dhanka ah carruurta iyo haweenka. maxamuud maxamed Saraaf ayaa ka warramaya. wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Ilhaan Maxamed Jaamac oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Ceerigaabo ayaa shaaca ka qaaday in wasaaradooda ay bilaabeen olole ballaaran oo ku wajahan xoojinta dhowrista xuquuqda aadanaha iyo dhowrista dhammaanba tacadiyada ka dhanka ah haweenka. waana wasiirku shirkeedan jaraa'id ku cadaysay in ololahan laga bilaabi doono dhammaanba gobolada iyo degmooyinka dalka kaasoo socon doona bay tiri muddo 16 maalmood. waana wasiirku intaa raacisay in ololahan loo sameeyay guddi heer qaran oo ka kooban 13 xubnood oo isugu jira hay'adaha dawladda, ururada bulshada iyo hay'adaha waa kaloo wasiirku ku dheeraatay siyaasadda wasaaradeeda ee ku aadan u doodista xuquuqda qaybaha bulsho ee u baahan in la difaaco danahooda iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa in dadkaasi ay helaan xuquuqdooda iyo daryeelkooda oo dhammaystiran. waxaana ugu dambayntii wasiirku ugu baaqday hay'adaha ay khusayso iyo shacbiga Soomaaliland inay gacan ka geystaan taabagelinta ololahan si loo gaadho bay tiri hadafka iyo ujeedada looga golleeyahay oo ku wajahan xoojinta xuquuqal insaanka iyo joojinta tacadiyada ka dhanka ah haweenka. dhinaca kalena mas-uuliyiin ka socotay dowladda haweenka ee Nagaad oo soo gaadhay magaalada gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ayaa kulamo iyo shirarba la yeeshay ururada haweenka ee gobolka Sanaag. kulamadaas oo lagu gorfeynayo xog ogaal u noqoshada haweenka damaca siyaasadeed leh ee doonaya inay isu sharaxaan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee fooda inagu soo haya iyo sidii loo dhiirigelin lahaa haweenka tababarana loogu furi lahaa. madaxa wafdigan ka socday dowladda Nagaad Jaamac Ibraahim Caawad oo halkaasi kala hadlay haween aad u tiro badan ayaa ku dheeraaday sida dowladoodu uga howlan tahay sidii haweenku kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen siyaasadda dalka iyo sidii barnaamijyo loogu abuuri
abuuri lahaaba waxaanu ku booriyey haweenaha gobolka inay isku duubnaadaan si ay uga midha dhaliyaan hadafkooda siyaasadeed ee ku wajahan ka qayb qaadashada doorka haweenka ee siyaasadda dalka waxaanu jaamacinta raaciyey in barnaamijyada noocan oo kalena ay daladooda ka wado dhammaanba gobolada dalka waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno aad u tiro badan oo halkaasna ka caddeeyey mowqifkooda siyaasadeed ay kaga qayb qaadanayaan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee fooda inagu soo haya waxaanay ugu dambayntii haweenkaasi ay halkaasi ku soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Sanaag caanka ku yahay ومحمود محمد حسن صراف TV qaranka Somaliland Ceergaabo geesta kalena wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa waxa ay ku dhawaaqday toddobaadyo laga hadli doono ka hortagga tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo caruurta kulankan oo lagu qabtay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sarsare ee wasaaraddaasi mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin mas'uuliyiin kale oo ka socotay komishanka xuquuqul insaanka qaranka kulankan waxa ugu horeyn ka hadlay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cabdilaahi oo xusay in ujeedada kulankan ay iskugu yimaadeen uu ka dhashay kadib markii ay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu u xilsaartay gudidan sidii ay uga hawlgeli lahayd wacyigelinta 16 maalmood ee ka dhanka ah tacadiyada lagula kaco haweenka maalintan oo ah maalin kamid ah maalmaha sida caamka ay u xusto bulshada kala duwan ee caalamku ayaa guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka Somaliland si rasmi ah looga xusaa in maalmahani ay kamid yihiin maalmaha sida caamka looga xuso guud ahaanba adduunyada agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu maruu ka hadlayay hawsha ay wasaaraddu u xilsaaran tahay waxa uu xusay inaanay gaar ugu xilsaarnayn ka hadalka xuquuqda haweenka iyo caruurta balse ay wasaaraddu markasta ilaaliso guud ahaanba xuquuqda mujtamaca kala duwan ee ku dhaqan guud ahaanba dalka Somaliland kulankaasi waxa iyaduna ka hadashay ayaan maxamuud askar oo ah madaxa xuquuqda iyo haweenka ee komishanka xuquuqul insaanka qaranka oo sheegtay in gudidani ay tahay mid ka hawlgalaysa wacyigelinta 16 maalmood ee ka dhanka ah tacadiyada lagula kaco haweenka isla markaana uu yahay mid markasta laga xuso guud ahaanba Somaliland kulankan uu yahay kii labaad ee isku timaado gudidani qani cabdi caalin oo ka socotay hay'adda CCBRS isla markaana ah madaxa waaxda lamaanaha ee hay'adaasi ayaa xustay in maalintani ay tahay maalin si caam ah looga xuso guud ahaanba dunida isla markaana ay kulankan yahay kii labaad ee isugu timaado gudidan oo loo xilsaaray sidii ay wacyigelin ugu sameyn lahayd 16 maalmood ee tacadiyada ka dhanka ah haweenka agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelintuna waxa uu kulan la yeeshay mas'uuliyiinta warfaafinta iyo dhaqanka ee dalka Djibouti kulankan uu agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Somaliland mudane Faisal Ali Sheekh uu kula yeeshay wasiirka warfaafinta dhaqanka warisgaarsiinta qaabilsan boosaha iyo ahna afayeenka dawladda Djibouti mudane Cabdi Xuseen Axmed uu kula yeeshay xarunta telefishinka raadiyaha ee Jamhuuriyadda Djibouti waxa ay kaga wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka wada shaqeyneed ee u dhaxeeya labada wasaaradood ee warfaafinta Somaliland iyo warfaafinta Djibouti waxaana ay ku ballameen si toos ah ay u wada yeeshaan wada shaqeyn wanaagsan kulankaasi agaasimaha guud iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda warfaafinta ee dawladda Djibouti ay wada yeesheen waxa la iskula afkartay in xafiis ay idaacadda telefishinka Djibouti ay ku yeelato laga furo magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland lagana hawlgeliyo iyo in telefishinka qaranka iyo raadiyo Hargeysa ay Djibouti ku yeeshaan xafiis isku hawla kana shaqeeya hawlaha muhiimka ah ee saxaafadda Jamhuuriyadda Djibouti kulankaasi dhinaca Jamhuuriyadda Djibouti waxa ku wehelinaya wasiirka warfaafinta dhaqanka boosaha iyo isgaarsiinta ahna afayeenka dawladda Djibouti agaasimaha wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Djibouti agaasimaha warisgaarsiinta iyo sidoo kale agaasimaha guud ee idaacadda Djibouti geesta kalena maarayaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa mudane Ibrahim Siyaad ayaa kulan kula yeeshay xafiiska wakaaladda biyaha ee magaalada Djibouti maarayaha wakaaladda biyaha ee magaalada Djibouti mudane Yusuf Mirgan Barkhad kulankaasi oo ahaa mid isbarasho mas'uuliyiinta kala duwan ee kulanka yeeshay
waxay ka wada hadleen sidii la isugu xidhi lahaa wakaaladaha biyaha ee Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa iyo magaalada Djibouti caasimadda dalka Djibouti waxaana ay sheegeen in ay iska kaashan doonaan dhinacyada kala duwan ee baahiyaha asaasiga ah ee labada wakaaladood sida wanaagsan ee uu ugu qaabilay xafiiskiisa uguna soo dhaweeyay waxaana uu tilmaamay in kulankan oo ahaa mid isbarasho ay halkaasi kasii anba qaadi doonaan geesta kalena Yuusuf Mirgan Barkhad mariyaha wakaalada biyaha ee magaalada Djibouti ayaa sheegay in ay yeelan doonaan xiriir toos ah wakaalada biyaha ee magaalada Hargeysa kana wada shaqeyn doonaan arrimaha dhexdooda ah kulankaasi uu mariyaha wakaalada biyaha magaalada Hargeysa uu la yeeshay dhigiisa dalka Djibouti waxa ku wehelinayay xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac iyo la taliyaha madaxweynaha Abiib Diiriye وماسي محمد عوالة iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Somaliland Djibouti kulan lagu soo bandhigay buug cusub oo qoray muwaadin reer Somaliland ayaa isna waxa lagu qabtay magaalada madaxda Somaliland Hargeysa munaasabadaasi lagu daafurayay buug cusub oo la yiraahdo darka maada ayaa habeenkii xalay lagu qabtay hotel Samatem ee magaalada Hargeysa munaasabadaasi oo ay maalgelisay shirkadda isgaarsiinta Samtel ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland gudoomiyaha hay'adda maamul wanaagga la dagaalanka musuqmaasuqa agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo waliba aqoon-yahano iyo waliba qorayaal iyo dhalinyarada naadiyada akhriska qaarkood gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday muhiimadda akhriska iyo qoraalka ay leeyihiin waxaana uu soo jeediyay dhalinyaradu inay ku dadaalaan qoraalka iyo akhriska soo kale waxa uu soo dhaweeyay qoraalka buuggaasi la yiraahdo darka maada oo ku tilmaamay mid qiimo leh waxaana uu soo kale ku amaanay gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland shirkadda isgaarsiinta Samtel dhiirigelinta ay siiso dhalinyarada gudoomiyaha hay'adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Axmed Maxamed Madar oo isaguna munaasabadan ka hadlay ayaa waxa uu ku amaanay qoraaga buuggan darka maada la yiraahdo in uu isku hawlay sidoo uu soo orin lahaa sheekooyin xiiso leh oo iyagu dhiirigelinaya dhalinyarada sidoo kale waxa uu soo jeediyay guud ahaan dhalinyarada in ay ku dadaalaan akhriska iyo qoraalka kaas oo ku tilmaamay mid aan ku gaari karno horumar xasan cabdi madaro isaguna munaasabadaasi lagu soo bandhigay buuggaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in sida kaliya loogu hiili karo qoraaga ay tahay in la akhristo lana iibsado buugaagtiisa taas oo dhiirigelin siinaysa qofka qoraalka isla markaas oo kale dhalinyarada waxa uu soo jeediyay in ay dihin tahay ilo badan oo wax laga qori karo taas oo ah mid aad u muhiim ah gudoomiyaha qabanqaabada munaasabadaasi Axmed Maxamed Shaqalo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu maaqnaqay dhamaanba cid kasta oo gacan ka geysatay fulinta hawshaasi iyo waliba ka qaybgalayaasha barnaamijkaasi soo kala masashaqale waxa uu xukuumadda Somaliland ku tilmaamay inay ku guuleysatay dhamaanba ballanqaadyada ay u ballanqaaday soo kale madaxweynaha Somaliland waxa uu soo jeediyay in uu qorshayaasha dhow ku darsado sidii loo soo nooleyn lahaa hidaha iyo dhaqanka kaasi oo ay Somaliland hormood u ahayd inta afka Soomaaliga ku hadasha waxa soo kale gabagabadii waxa iyaguna halkaasi buuggaasi lagu magacaabo darka maada iyagu sharaxaad iyo tafaasiil dheeraad ka bixiyay Axmed Shawqi iyo waliba Cabdiladiif kuwaasi oo iyagu kamid ah aqoon-yahanada reerka Somaliland gabagabadiina waxa halkaasi soo kale lagu soo bandhigay buug kale oo iyaguna la mid ah urur siyaasadeed cusub oo lagu kala magacaabo Jamhuuri iyo waaga cusubna waxa laga dhawaaqay magaalada madaxda Somaliland ee Hargeysa urur siyaasadeedkan cusub oo lagu magacaabo ururka Jamhuuriga Somaliland ayaa lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa urur siyaasadeedkan oo ay ku midoobeen aqoon-yahano siyaasiyiin iyo waxgarad kamida gobolada Somaliland lagaga dhawaaqayay waxa lagu qabtay hotel Imperial ee magaalada Hargeysa ururkan cusub ee Jamhuuriga oo ka mid noqon doona ururada siyaasiga ah ee isu diyaarinaya ka qaybgalka tartanka doorashada golaha deegaanka ayaa madashaasi waxa lagu soo bandhigay siyaasadda ku salaysan ee ururkani oo ku shaqeyn doona taasi oo mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlay ay ku tilmaameen in uu yahay urur siyaasi ah oo ku dhisan sinaan cadaalad dimuqraadiyad dhammaan shacabka Somaliland ee gobolada dalku ay yihiin kuwa u siman waxaana si gaar ah farta ugu fiiqeen mas'uuliyiinta Hungary kaga jiro hoggaanka sare ee ururka in ay si xaq ah oo cadaalad ah ay uga qayb qaadan doonaan tartanka loogu tartamayo hoggaanka sare ee urur siyaasadeedkan Jamhuuriga mas'uuliyiinta madashan ka hadlay ayaa waxa kamid ah gudoomiyaha guddida qabanqaabada ee ururkaasi Cumar Xuseen Cismaan Xasan Mire Saleebaan Yuusuf Cali Koore Rashiid Cumar Sheekh iyo Aadan Roosh oo dhamaantoodba ah siyaasiyiin Somaliland kamid ah waxaana dhamaantoodba ay ku adkeeyeen shacabka Somaliland gaar ahaan taageerayaasha ururkan in ay ka mid noqon doonaan ururada ugu horeeyay ee ka shaqeeya dhinaca cadaaladda iyo sinaanta shacabka iyagoo
taageersan siyaasadda uu urur siyaasigani uu ku dhisan yahay. waxaa si istaba joog ah loogu dhawaaqayaa ururo kala gedisan oo siyaasi ah oo isu diyaarinaya sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka golaha deegaanka ee la doonayo in ay ka qabsoomaan dalka. tan ayaa ka dambeysay kadib markii golayaasha sharci dejinta iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somalilandba ay ku dhawaaqeen sifo sharci ah in loo madax banaan yahay in dib loo soo yegleelo ururo siyaasi ah oo laga soo dooran doono saddexda xisbi ee dalka u noqon doona xisbiyada siyaasiga. geesta kalena urur siyaasadeed cusub oo lagu magacaabo waaga cusub ayaa isagana looga dhawaaqay magaalada Hargeysa gaar ahaan hotel guuleed. munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano, siyaasiyiin iyo waxgarad kale oo iyaguna ka mid noqon doona mas'uuliyiinta hogaamin doona urur siyaasadeedkan cusub ee waaga cusub. gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ururkani uu yahay mid ka shaqayn doona horumarka iyo taabagelinta dhalinyarada Somaliland sidii ay uga qaybgeli lahaayeen talada dalka. gudoomiyaha ururka waaga cusub Maxamed Cabdi Xasan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay ujeedooyinka dhabta ah iyo himilooyinka ururkani uu hiigsanayo iyo barnaamijka ururkani ugu talagalay in uu siyaasadda dalka kaga qayb qaato. waxaanu halkaasi uu ka hoga tusaaleeyay siyaabaha kala gedisan ee ururkani uu doonayo inuu shacabka Somaliland ugu noqdo mid ka mid ah xisbiyada siyaasiga ah ee talada dalka doonaya in ay qabtaan. waxaanu tilmaamay in dhalinyarada Somaliland ay yihiin halbowlaha koowaad ee la doonayo in ay ururkan tiirar u noqdaan isla markaasina ay ka qayb qaataan hogaaminta dalka maadaama ay yihiin jiil da'yar oo aqoon iyo kartiba leh. sidoo kale waxa uu ka hadlay gudoomiyaha ururkani in uu ka shaqayn doono kobcinta iyo kor u qaadida dhinaca dhaqaalaha Somaliland. mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka Odus oo isagana dhawaantan lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa oo ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa soo dhaweeyay urur siyaasadeedkan cusub ee waaga cusub. waxaana mas'uuliyiintaasi ka mid ahaa mujaahidi Ibrahim Degaweyne, Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax, xildhibaan Maxamed Cumar Xaashi oo dhammaantoodba waxay sheegeen in ururkan iyo kuwa kale ee la halmaala in ay soo dhaweynayaan isla markaasina ay u diyaar garoobayaan miidaanka tartanka golayaasha deegaanka ee la filayo dalka inay ka qabsomaan. maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera gobolka Saaxil ayaa waxa ay dhagax dhigeen jid 3 kiiloomitir qiyaasiisu ay tahay kaasi oo la hirgelinayo. Mukhtaar Cabdiraxmaan ayaa warkan ka soo diray magaalada Berbera. maamulka dawladda hoose ee magaalada Berbera ayaa maanta dhagax dhigay wado cusub oo gaadhaysa ilaa 3 kiiloomitir oo laami ah. wadadaasi oo isku xidhi doonta bartamaha magaalada Berbera iyo garoonka cusub ee ay dawladda hoose ee magaalada Berbera ay ka dhisayso xaafadda gumburta ee bariga magaalada Berbera. garoonkaasi oo lagu magacdaray Berbera Stadium noqon doona garoonka kubadda cagta ee ugu weyn guud ahaan Jamhuuriyadda Somaliland. waxaana wadadaasi saakaasi wada jira u dhagax dhigay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Berbera Cabdi Jaamac Fadul iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cali Maxamed Cilmi. xogayaha dawladda hoose Cali Maxamed Cilmi oo madasha dhagax dhigaasi hadal ka soo jeediyay ayaa sheegay in ay wadadani wax weyn ka tari doonto dhinaca bilicda iyo habsami socodka gaadiidka gaariga garoonkaasi iyo waliba sidii wadadaasi wax looga wada qaban lahaa. wadada sirfaygeedu ku soo hagaago inay si wanaagsan oo nadiif waxooda uga furtaan oo ay ka ururaan gacanna siiyaan hawlwadeennada dawladda hoose ee shaqada ka shaqaynaysa. waxaa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Berbera Cabdi Jaamac Fadul ayaa waxa uu sheegay in ay wadadan ay gacan ka siinayaan hay'adaha qaramada midoobay ee GPLG-gu isla markaana ay qayb ahaan ay wadadaasi ay dhisayaan. waxaana uu soo jeediyay dadweynaha ku dhaqan magaalada Berbera in ay ka qayb qaataan dhismaha iyo waliba ka qayb qaadashada barnaamijyada lagu horumarinayo xarunta gobolka Saaxil ee Berbera. dhinaca kalena shirkadda wadaniga ee Somtel qaybteeda gobolka Saaxil ayaa maanta qalab ciyaartooy oo dhameystiran ku deeqday ciyaartooyda xulka gobolka Saaxil ugu talagalay in ay sanadkan ay u saftaan koobka gobolada Jamhuuriyadda Somaliland ee bilaabmi doona 1 bisha 12 ee foodo inagu soo haysa. qalabkan oo isugu jira direyska ay ciyaartooydu ku labistaan kabo iyo waliba kubado iyo qalab kale oo kamid ah qalabka ciyaartooyda. xafladii lagu guddoonsiinayay qalabkaasi ciyaartooyda xulka gobolka Saaxil oo ka dhacday xafiiska gobolka Saaxil ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil, ku-xigeenka duqa degmada Berbera iyo mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada gobolka Saaxil, maamulka shirkadda Dahabshiil iyo xubno ka socday dawladda hoose ee Berbera iyo dekada.
waxaana halkaasi hadal ka soo jeediyey ugu horeyn gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil khadar cali cilmi ayaa waxa uu si weyn ugu mahadnaqay shirkadda wadaniga ah ee Somtel isagoo ciyaartoydana dhulkooda ku booriyay in ay ku dadaalaan sidii ay koobkaasi u soo hanan lahaayeen uguna guuleysan lahaayeen isagoo xusay in loo baahan yahay in la ilaaliyo nidaamka iyo xeerarka ciyaartoyda iyo waliba lana hagaajiyo akhlaaqiyadka iyo hab ciyaareedka inta ay ku kala jiraan wareegaasi ay ku tartamayaan gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Berbera Cabdi Jaamac Faduul ayaa halkaasi ka sheegay in ay taageersan yihiin gobolkooda una diyaar yihiin wax kasta oo ay uga baahdaan taasoo uu sheegay in dawladda hoose ay horeba ula shaqeyn jirtay ciyaartoyda gobolka waxaana uu sheegay in maanta loo baahan yahay oo kaliya sidii uu xulka gobolka Saaxil ugu guuleysan lahaa koobkaasi taasi oo uu sheegay in ay ku xidhan tahay cagta ciyaartoyda xulka gobolka Saaxil waxa kale oo kamid ahaa halkaasi mas'uuliyiintii ka hadlay suduwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka Saaxil Shaafici Jaamac Aadan oo isaguna si weyn ugu mahadnaqay shirkadda wadaniga ah ee Somtel iyadu ku deeqday qalabkaasi taasoo uu sheegay in ay tahay shirkadii ugu horeysay ee uu ka soo gaadho qalab ciyaartoy waxaana uu sheegay in ay taasi tahay abaal ay u hayaan ciyaartoyda xulka gobolka Saaxil waxa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay Keed Cabdillaahi Xandulle oo amaarayaha shirkadda Daabshiil ee gobolka Saaxil waxaana uu sheegay in aanay ahayn markii ugu horeysay ay shirkadaasi uu ka soo gaadho qalab ciyaartoy waxa uu sidoo kalena uu xusay in ay dhiiri gelinayaan korna u qaadayaan ciyaartoyda gobolka kalena qayb qaadanayaan baahiyaha ku xeeran taasoo uu sheegay in ay dhiiri gelin noqonayso ciyaartoyda xulka gobolka waxa kamid ahaa mas'uuliyiinta iyaguna halkaasi ka hadashay agaasimaha maaliyadda ee dawladda hoose Awil Umar Ali iyo waliba madaxa shaqaalaha ee dekedda Berbera Ali Cige iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan bahda sportska ee gobolka Saaxil waxa iyaguna sidoo kale dhankooda mahadnaq ballaaran u soo jeediyay shirkadaasi wadaniga ah ee Somtel isla markaana uga mahadnaqay deeqdaasi ay soo gaarsiisay xubno ka mid ah ciyaartoyda xulka gobolka Saaxil oo iyaguna ballan qaaday in ay koobkaasi ay soo hayn doonaan Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera xaflad laga hadlayay horumarinta dhinaca waxbarashada oo ay ka qayb galeen ardayda wax ka baratay jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ururka wadaniga ee tala wadaag ayaa martiqaad u sameeyay qaar ka mid ah ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha dalka iyo dibadda xafladaasi oo lagu qabtay hotel Harwanaag ee magaalada Hargeysa ayaa waxa halkaasi soo kale lagu qabtay dood cilmiyeed ay xubnaha aqoon-yahanka isku weydaarsanayeen afkaarta iyo aragtida la xidhiidha sidii dalka loo horumarin lahaa iyo sidii daayarta jaamacadaha ka baxda shaqooyin loogu abuuri lahaa xafladaasi ayaa waxa ka qayb galay agaasimaha wakaaladda qurbajooga Soomaaliland Cabdicasiis Muxyidiin Muuse iyo waliba gudoomiye xigeenka labaad ee jaamacadda Hargeysa iyo xubno ka mid ah aqoon-yahanka dalka iyo waliba sharaf kale agaasimaha wakaaladda qurbajooga Soomaaliland Cabdicasiis Muxyidiin iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee jaamacadda Hargeysa Maxamed Cali Dhuux oo munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay ayaa ka warramay faa'iidada aqoontu u leedahay bilowga aadamaha iyo sida loogu baahan yahay in loo kobciyo waxbarashada iyo isku xidhnaanshaha bulshada dhexdeeda waxaanay kula dardaarmeen dhalinyarada jaamacadaha dhammaysatay in ay si wadaan waxbarashadooda isla markaana ay bulshada uga faa'iideeyaan aqoonta ay barteen waxa kaloo iyaguna goobtaasi ka hadlay xubno ka mid ah dhalinyarada iyagu xafladaasi loo sameeyay kuwaasi oo u mahad celiyay xafladda lagu maamusay mas'uuliyiinta ururka tala wadaag ee goobtaasi ka hadlay ayaa ujeedada xafladaasi waxa ay ku tilmaameen in ahayd mid waxay ku tilmaameen ujeedada xafladaasi mid lagu dhiiri gelinayo daayarta jaamacadaha ka soo qalin jabisay gudoomiyaha xisbiga siyaasiga ee kulmiye ee gobolka Gabiley ayaa waxa uu beeniyay warar ay ka soo saareen qaar ka mid ah warbaahinta oo ka hadlayay in xilkaasi laga qaaday Nimcaan Dheeg Ibraahim ayaa ka soo warramay magaalada Gabiley gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley Aamin Muuse Xirsi iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa maanta gaashaanka ku dhuftay inay waxba kama jiraan hadallo la iska dhaxmarayo oo ku salaysan in gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Gabiley Aamin Muuse Xirsi xilkii laga qaaday balse waxa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley iyo mas'uuliyiinta kale ay sheegeen inay arrinkaasi waxba ka jirin sidoo kale waxa gudoomiyaha oo si sir ah ku qabtay gurigiisa waxa uu sheegay inay arrinkaasi maanta ay dadweynaha iyo كما صحافة صدح مريان أنا وحبة كتيرين ودمياء حسب كلمية قبل كقبل أمين موسى حسي وهذا ما أصيقا الله يا وحوري إلا ما أنت وحصوب حي هذا الله الأوران يو ودمياء حسب كلمية يا اللي بدلي أو نكل اللي بدلي أنا هرتقول لي حلقوا مات ونقول يجيب ماشي ما حين يو اسم بدلني ما دوا صورة قال قوتي دون طرح نقطة
laakiinse wixii aan jirin in la qoro oo la faafiya waxay ku tahay xisbigana dhib annagana dhib bay nugu tahay markaa nimanka usaydada ku qoro waxaan uga digaynaa inaanay qorin war aanay hubin oo ina salka taaban oo ina ogaan sidaa waxaan u caddaynayaa taageerayaashii xisbiga kulmiye iyo cid kastoo kulmiye danaynaysa inaan weli aan guddoomiye xisbiga kulmiye aan ahay hawshii qabanqaabada guddoomiyahana aan ku jirno wadno wax isbedelo weli xisbiga lagu sameeyana aanay jirin goortii loo baahdo haddii loo baahdo unay noqonayso in la sameeyo xisbiguna maaha xisbi aanu ku nahay guddoomiyaha xisbinimadaanu ku nahay waxaanu nahay lafta iyo dhuuxa ayaanu kulmiye ka nahay cidda kale imanaysana ciddii imanaysa timaadana waxaanu nahay kuwa la shaqaynaya laakiinse wax isbedela iyo wax nidaama oo haba yaraatee sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Gabil Amiin Muuse Xirsi waxa uu ka hadlay soo dhaweynta gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo dhawaan ku soo foolay gobolka Gabil waxa uu sheegay in dadweynaha reer Gabil ay mas'uuliyiintu ku jiraan sidii loo qaban qaabil lahaa waana markii ugu horeysay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee talada dalka ay ka hadlaan arrimo la isla dhexmariyo in gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Gabil xilkii laga qaaday taasoo maanta sheegay inay waxba ka jirin Nimcaan Deeg Ibrahim TV qaranka Gabil warkii oo aad kala socoteen muuqbayaha qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynaha aanu jecelahay yar iyo weynba waa naga inta warka xigeentan kulmi doona hadii Allah uu dalino saamaxo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh